Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa magaalada Dubai kulan kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra'iisul wasaaraha dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ka oo iga wada hadleen xoojinta xiriirka soo jireenka iyo iskaashiga labada dal. Labada ra'iisul wasaare ayaa kulankooda diiradda ku saaray iskaashiga labada dal ee walaalaha ah, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, dhaqaalaha, dhoofinta xoolaha Soomaaliyeed ee loo iibgeeyo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta iyo sida ay laga maarmaan u tahay in dadka Soomaaliyeed ee u safraya dalka Imaaraadka Carabta loo fududeeyo dalku galka ama fiisooyinka. Wasiirka Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare Mudane Cabdullaahi Abuukar Xaaji oo ka mid ahaa wafdiga ra'iisul wasaare Rooble ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu xambaarsanaa kulankii maanta dhexmaray ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne ku-xigeenka ahna ra'iisul wasaaraha wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta. sidaad la socotaan wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka mudane injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay waxaan ku nimid booqasho wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta magaalada Abu Dhabi. wafdigaasoo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Abu Dhabi. maanta oo taariikhdu tahay 31 waxaan la kulannay madaxweyne ku-xigeenka isla markaana ah ra'iisul wasaaraha wadanka Sheekh Rashid Al Maktoum. labada mas'uul waxay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeyay labada wadan sidii loo xoojin lahaa loona horumarin lahaa. wasaaraha wuxuu kaloo warbixin ka siiyay xaaladda abaaraha ba'an ee wadanka ka jirta, wuxuuna uga mahadceliyey shixnadii ay wadanka u soo direen. wuxuu kaloo ka codsaday in ay wadanka gargaar kale oo dheeraad ah ay u soo diraan. ra'iisul wasaaraha waxaa kaloo ra'iisul wasaaraha wadanka Imaaraadka Carabta kala hadlay arrimaha ganacsiga iyo sidii loo xoojin lahaa, sidii loo furi lahaa xoolaha wadanka Soomaaliya oo muddo badan xayirnaa, sidii ganacsatada loogu fududeyn lahaa imaatinka wadankan iyo fiisooyinka iyo dalku galka wadankan sidii loogu fududeyn lahaa. ra'iisul wasaaraha wadanka Imaaraadka dhankiisa wuxuu ka mahadceliyey sida wanaagsan booqashada uu wadanka ku yimid ra'iisul wasaaraha. wuxuu kaloo ballan qaaday in xiriirka labada wadan uu sii xoojin doono, in abaaraha Soomaaliya ku habsadanay wax weyn uu ka qaban doono, in ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo furitaanka xoolaha wadankana uu wax ka qaban doono. shirkaas wuxuu ku soo gabagaboobay isfagarad iyo isfaham. Nasir Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Dubai, wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta.